Bismillahirrahmanirrahiim. Halkani waa Wadani TV. Daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha leh ee Wadani TV waxaa maanta u cadeynaynaa inaan digniin buuxda u dirayna madaxweynaha Shariif oo aan leenahay sida ugu dhaqsaha badan waa inuu ku laabtaa shirkii Nairobi. Waxaan u cadeynaynaa in maalmahan in dabagal badan lagu hayo oo ah inuu ka dambeeyay dilalkii faraha badnaa ee masaakiinta Muqdisho isaga oo abuurayay nabadgelyo iyo xasillooni darro mar kale uu istusay inuu sida ugu soo laaban karo xukunkii Soomaaliya mar kale. barnaamij khalad ahaayo ilaa haatan ay ku kala lagu lug joogo ayaa cadeemaheedii gacanta lagu hayaa oo ay cad yihiin oo ah inuu lug ku leeyahay falalkii ugu dambeeyay ee nabadgelyo darrada ahaa ee xamar ka dhacayay. waxaan kale oo baarlamaanka Soomaaliya u cadeynaynaa in ka badan 400 oo aqoon-yahaniin Soomaaliyiin ay u gudbiyeen UNBOS mihigaan kooxda u qaabilsan qaramada midoobay in baarlamaanka laga soo xulo gobolada Soomaaliyeed oo meel kasta diyaaradaha United Nations-kana lagu soo qaado oo loo sameeyo guddi qaramada midoobay oo soo xulo baarlamaankaasayto iyagoo korrupshino badan ay ka socdaan Muqdisho. waxaan u sheegaynaa baarlamaanka lacagaha faraha badan bixiyay in ay ku hungoobayaan oo taasi ay socon doonin ammaanka golaha ammaankana aan ka sugayno warbixin buuxda oo ah doorashada madaxweynayaasha. isku soo wada duub ujeedada waxay tahay inaan mar kale ugu degayno Shariifka in uu sida ugu dhaqsaha badan ku laabto xamar isagoo oo ka dambeeyay maalmahan ugu dambeysay nabadgelyo darradii xamar ka dhacaysay oo uu lug ku lahaa si mar kale xukunka ugu soo laabto. ayaa waxaan leenahay ha noqonin cimri tagay ceeb laguma soo toogiyo. waxa xaqiiqa oo dhaba inaydan maamul ku soo laabanaynin dhammaantiin laakiinse sharafta ka xigso oo ku baxso lacagihii aad dhacdeen iyo hantidii dadka meesha aad geliseen. waxaa kale oo idinkaga digaynaa in hantida la soo qabanayo idinkana dambiilayaal dagaal noqonaysaan haddii shirka maabka aad saxiixdeen saxiixiina lagu hayo aad dib ugu laaban weydaan sida ugu dhaqsaha badan labadan bari ee nagu soo aadan aad noqon doontaan dambiilayaal la ugaarsado oo la horkeena cadaaladda. mahadsanidin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.